madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa kulan kula yeeshay Hotel City Plaza ee ku yaala magaalada Burco odayaasha cuqaasha madax dhaqameedyada ganacsatada waxgaradka iyo aqoon-yahanka deegaanada kala duwan ee gobolka Togdheer. Kulankan ayaa ujeedadiisu ay ahayd xog wareysi dhexmaray dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanada gobolka Togdheer iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wafdigii cuslaa ee uu hogaaminayay. dhammaanba qaybaha kala gedisan ee bulshada deegaanadani waxay madaxweynaha ay uga warameen xaaladda guud ee gobolka nolosha dadka iyo deegaanka iyagoo u soo bandhigay baahiyaha heer gobol iyo heer degmo. waxaana ay sheegeen in ay taageerayaan xukuumadda Somaliland ee talada hadda haysa. xubnaha wafdiga kala gedisan ee uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa iyaguna uga mahadnaqay dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan deegaanada gobolka Togdheer taageerada ay u muujiyeen xukuumadda Somaliland. waxaana ay si faahfaahsan uga warbixiyeen wafdigu waxqabadkii xukuumadda iyo waxyaabaha laga sugayo ee qorshaha ugu jira waqtiga dhow. Saciid Maasi Maxmed Cawaale iyo Filim Qaadi Cabdilaahi Cali Suudi, Burco.